ruushka magaalada St Petersburg. barxadda guri dabaqa oo duuga. taleefanka waxaan ku hayaa heerka madaxayga. halkan kuma gudbi doono, madaxa ayaan ku dhufan doonaa. si caadi ah loogu socdo lakaab jiid ayaa halkan laga saaray. waxayna aadeen 2 tallaabo. bal eeg sida marinku hooseeya. 2 albaab oo gidaarda labada dhinac ee marinka. waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad hoos ugu dhaadhacdo jaranjarooyinka albaabada. albaabkani wuxuu leeyahay 2 jaranjaro hoos. albaabka kale wuxuu kaloo leeyahay 2 tallaabo. tani ma runti fikradda naqshadeeyaha dhisay dhismaha. samee marin hoos oo naxdin leh oo leh tillaabooyin. waa kan heerka ashfalka. waa kan tillaabooyinka. waa kan bevel si aadan madaxaagu jabin. mashruuc naqshadeed oo cajiib ah oo loogu talagalay caasimadda boqortooyada Ruushka. taariikhyahanadu waxay sheegeen inay u dhiseen habkan. laakiin ma sharxi karaan sababta. bal aan eegno gidaarka guriga ku xiga tudujan. waxaan elnaa daaqad furan. lagu daboolay mesh bira. milkiilayaasha goobta wax macno ah kama helin daaqada hoose. daaqad jasri ah oo 2 glazed ah ayaa halkan lagu rakibay. halkan waxa kaloo jirta daaqad 2 glazed ah. sida muuqata kani waa hal qol. furitaanka daaqadu waa yar yahay oo waxa uu leeyahay qaybo khaldan. waxaa jirjiray daaqad caadi ah halkan. daaqadda bar ayaa goday. waxay qodeen god laakiin waxaa ka buusamay karo. waxaan ka tusashaa dhanka kale ee guriga. waa ka marinka hoose. halkan waxa ah daaqadaha u furan cabirada caadiga ah. daaqadan markii hore waxay lahayd erer la mid ah sida daaqadaha kore ee furan. laakiin guriga waxaa buux dhaafiyay dhoobo dareere ah. kala bar joogga furitaanka daaqada ayaa ka hooseeya heerka dhulka. waxaad u baahan tahay inaad ku darto 1 mitir iyo badh hoos. guriguna wuxuu ekaan doonaa mid caadi ah. kadibna ma taaban doono madax saare madaxay oo ka soo horjeed saqaafka marinka. markii dhismaha la dhisay marinkan ayaa aad uga sarreeyay. laakiin haddana wax baa dhacay oo magaaladii oo dhammi waxay hoos u degtay 1 mitir iyo badh. dadku ma awoodin inay wax walba qodaan ilaa heerkii hore. haddii aad u badan oo shaqo ah. haddii aad kor u qodo ilaa heerkii uu hore dhulku ahaan jiray. dadku waxay qabteen shaqo ugu yar si ay u sii wadaan isticmaalka dhismaha. taasi waa sababta tudujyadu aad u hooseeyaan. daaqadahana waxay ka hooseeyaan heerka asfalt.